Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalaha meel kasta aad joogtaan. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. Alxamdulilah anaga waan iska fiicannahay. Maanta waxaan inoo wadaa video cusub insha Allah oo routiinkeena kamid ah. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaan biidhnillah. Asxaabtiina aad la wadaagi doontaan insha Allah. Xagan waxaan ku sameysanayaa waa quraac. Waa digirta ku jirta kasacyada. Basalan shiilay digirtan ku daray barbarooniga oo laba kalaran ku daray insha Allah. Intaas waan ku daray iyo basbaas iyo xawaashiyo intaas aan isku isticmaalo insha Allah. Basbaaska kasacad waan isticmaalay. Marka alxamdulilah hada quraacdeena xaga ku sameysanayna insha Allah. Videogan waxaan kula wadaagi doonaa new recipe oo ah tuna pasta insha Allah. oo aad u fudud oo loo sameynayo sidoo kale banaanka aan aadi doono insha Allah. iyo waxyaalaha aan sameyn doono inta waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysataan biidhnillah. haddaad ku cajabay videogana please subscribe noo saar, like tana naga halmaamin, asxaabtaadana la wadaag biidhnillah. marka insha Allah ila daawada idinku aad u mahadsan. sida arkaysaan markaan inta isku soo shiilay waxaan ku daray maxay ahaydey ukun laba xabo ukun soo qasan kor ugu shubay iyo cheese intaas aan ku daray insha Allah. kabsar caleena xagga sare kaga daadiyay intaas ay quraacdayda biidhnillah. soo waxyaalaha qaloo qabta insha Allah ila daawada videoga. هذا لابتنا اسكا دقايا ان شاء الله. وقلابتنا كقرعنay iyo waxa kale in sha Allah waa bixayna banaanka aadina hawada fiinan maanta qabowna waa jiray. marka waxaan rabnay inaan soo socono xooga hawo soo qaadano in sha Allah. هذا جروب طانا قناي إن شاء الله حاجة خمسة مثلا قضاء وبعثنا دي شيء جاي بعثنا زيادة وفضل هاي وما نشوفين تروح وقت كمان هذا يتخانق على وقت كده دم بكون كتير يمكنني معي 20 minutes ثانية دمين مثلا وبصلا شيء بس ما كان شيء بس وقسم كتير تاي سنين مهم معهن إنه كدر ستيد إن شاء الله. waxaa ku darsan kartaa yaanyada iyo qudarada aad shiidata oo ku darsan kartaa biidhnillah. markaan intaas ku daray waxaan ku dari doonaa yaanyo iyo waxaan isku soo shiiday barbarooniga oo saddexda nooc ah iyo kabsar caleen iyo toon aan isku shiiday ku dari doonaa insha Allah sida arkaysaan hadda. kabacdi intaas kadib waxaan ku darsanaysaa xawaajiyadaada waxyaalaha u baahan tahay iyo laba gasac oo waxaan isticmaali doonaa tuna ama malayga kasacyada ku jira insha Allah. iyo double creamka oo ku dari doona biidhnillah sida arki doontaan insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan biidhnillah. daar dib fadhi ka jabin kartaa markaad dhameysid ama waxaad sameyn kartaa inaad cheese ka dartid iyo sida diyaarka aad sameyn kartaa biidhnillah. marka ila daawada sidaan wada sameyn
waxaa kale toon ku daray insha Allah waan ka halmaamay kaamirada waxaan ku daray spinach insha Allah any qudrad aad ku haysatid ku darsan kartaa markaan spinach oo frozen oo waxaan helay xaga baraf ku jira aan ku daray bismillah hadda waxaan sameynaa baastadii oo markaan soo karinay hadda shaqada sare ka darasay soo diidka ka darasa inta isku wada taw isku dabooleysa hadda kiiska jacayl kiiska laga darsan kartaa waa diyaar hadda tahay dadka oo mataqaanaa siirtidna oo intii gelisidna sidii kala markaan sameyn doonaa markaan isku walaaqo baking soda ku shubi kiisan bisha ka hadlaan insha Allah هذا سنجلنا إلى 15 minutes كده ممكن إن شاء الله بنشوف الأولاد ومعاني ومعاني نشوف بس المكان عادي نسكت المكان بإذن الله ما شاء الله وكاسة سيدة نوغا soo baxday sida arkaysaan alxamdulillah markaas oo dhameeyay waxaan sameyn doonaa cookerkii ayaan iska dhaqi doonaa insha Allah iyo daawada maanta isticmaali doona waxaan rabaa inaan idin la wadaago ما شاء الله كوكركيدا daawadan aan isticmaalaa daawadan waxa loo isticmaalaa xag hoos ovenka laakiin meel kasta wax kaaga dhigeen waa isticmaali kartaa aad ay u shaqeynaysaa ma sha Allah intana video ku soo gabagabeynaya salaam alaykum